wagaag waxaa magaalada London ku geeriyooday cudyaqaan Axmed Ismaaciil Xuseen Xudaydi oo loo yaqaanay boqorka cuudka. Xudaydi waxa uu jiray 29 sano. Magaalada Berbera ayuu ku dhashay sanadkii 1928 waxaana ku barbaaray magaalada Cadan ka hor inta uusan dib ugu soo noqon dalka Soomaaliya. Magaca Xudaydi waxa uu xiriir la leeyahay magaalada Xudayda ee dalka Yemen waxaana uu bixiyay awoowihi. Waxa lagu tilmaamaa inuu kamid ahaa rukumada ama asaasayaasha fanka casriga ah ee Soomaaliya. Xudaydi waxa uu u geeriyooday xanuunka fayraska corona ilaahay ha u naxariisto. Hadaba khadka Skype-ka waxaa toos uga jira magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka Abwaan Macalin Siciid Saalax oo Xudaydi aqoon u leh. Abwaan Siciid soo dhawow aad iyo aad u mahadsantahay barnaamijka nagala soo qayb gasho. Xudaydi Allah u naxariistay haddii aan ku weydiiyo shakhsiyadiisa maxaad nooga tilmaami kartaa? mahadsanid waa soo dhawahay ajal waliba aminteeda leh tiirkaasu hadduu maanta dhacay shakhsiyadda Xudaydi sida loo yaqaano wuxuu ahaa waxa tilmaamaha uu halabuurka ama fanaanka Soomaaliyeed farxadda ku jirta iyo inuu dadka kaga farxiyo iyo kasmada maskaxdiisu waxa ay dhiiqdo uu soo celiyo sida ka muuqata ee ah bashaashnimada bulshanimada jacaylka dadka wadaninimada muuqaalkeeda iyo oraahdeeda iyo garashada wax urisa kuwa iyo kuwa ka badan ayay tilmaamihiisa ka mid ah. waa gartay Abwaan Siciid waad isla soo shaqaysan sida aan filayo adiga iyo Allah u naxariiste Xudaydi maxaad ku xasuusan kartaa waayihiinii aad fanka ku wada jirteen? runtii wada shaqayn ka hor waxaan arkay isaga oo cuudkana tumaya riwaayadna jilaya markii iigu horeysay sanadkii koobaad ee xornimada Soomaaliyeed loo dabaaldegayay waxaan ku daawaday riwaayadda iyo falkiisa magaalada Cadan oo anigoo fasalka 6aad oo arday yar ah aan fasax u tagay sanadkii ku tagay aan fasalka 7aad ahaa waa 1962 ayaanu toos isugu nimi magaaladii ama goobtii aan dugsiga dhexe ka dhiganayay ee la yiraahdo Dayaxa in uu si kala ah ama kedisa ah uu u yimi isaga oo xagga galbeed ku soo socda masraxiyad ardaydayada markaasi ay jilaysay oo aan ka qayb ahaa oo uu sameeyay Axmed Saleebaan Bidde oo aanu geyn lahayn xagga Boosaaso ayaanu isaga dartii xagga galbeed ula soo kacnay iyo magaalada Burco markaa ayaa falgal hawl aanu wada yeelano laakiinse aan ahaa ardayga macallimiintu wado riwaayadda uun wax ka jilaya ayaanu ku kulannay hase yeeshee wada shaqayntayada badani intii dambe oo aan anna hawsha wax ka soo galay oo uu yimi magaalada Muqdisho oo dambe iyo intii dibadaha la joogay ayay u badnayd waxaan ku xusuustaa wax badan waxa dadku ku wada yaqaan oo qof waliba uu ku soo jiitay oo aad tilmaanteen oo ah walaxakan ama agabkan music ee kamanka ama cuudka la yiraahdo keliya kumuu ekayn hal abuur wax abuura buu ahaa tiirarka wuxuu ka mid ahaa bilowgii fanka Soomaaliyeed lagu xusuusto markuu joogay uu bilowday heerka modern music ama music casriga ah ee Soomaaliyeed ee cusub uu loo yaqaano qaraamiga hore mid u curiyay oo ku leh Abwaan Siciid Saalax aad iyo aad u mahadsantahay waa xaqiiq in tiir kamid ah muusiga ama fanka casriga ah ee Soomaaliyeed uu jabay waa mahadsantahay Abwaan